بسم الله الرحمن الرحيم. cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay wax loo yaqaano shimmer test. shimmer testigu waa baaritaan la suubiyo. marka insha allahu tacaala maanta cashirkeena saas ayuu ku saabsanaan doonaa. marka ugu horeyso shimmer testigu waa maxay? Horta waa test noocay. shimmer testigu waa test loo isticmaalo wax loo yaqaano dry eye ama qofka markii ay ilintu ku yaraato ama qof looga shakiyay inay ilintiisu yar tahay. marka calaamado badan oo lagu yaqaano ayaa jirto qofka marka ay dry eye ku dhacdo. ayadoon si gaar aan uga hadli doono cashir gaara dry eye-da iyo waxa ay tahay. haddase waxaan ka hadlaynaa testigan iyo sida loo suubiyo. haddaba maxaa la testi garayaa? ilintu caadiyan tiiriska waxay u kala baxdaa 3 layer. layerka ugu sarreeya oo lipid layer la yiraahdo, layerka dhexe oo qaybta ugu badan oo la yiraahdo aqueous layer, iyo layerka ugu hooseeya ee dhinaca corneada jira oo loo yaqaano mucin layer. marka testigan waxaa lagu suubiyaa qaybta aqueous layerka. waxaa lagu jegarayaa ilinta lakabkeeda aqueous layerka. haddaba waa maxay testigan? testigan muxuu ka suubsan yahay? testigan waxaa la isticmaalaa filter paper ama warqad sifayn warqada. warqadahan aad u jeedaan ee dheer way filter paperska. magacooda waxaa la yiraahdaa Whatman filter paper ayaa la yiraahdaa. waa ilaa iyo 5 millimeter balacooda. dhererkoodana waa ilaa iyo 35 millimeter. marka warqadahan ayaa ku dhex jira Whatman-ka dhexdiisa labadan filter. kadibna qaybta sare meesha triangle-ka iyo wixii ka sarreeya ayaa la qaloociyaa si isha dhexdeeda loo geliyo. haddaba filter paper-ka iyo sida uu loo qaloocinayo waxaa si fiican ugu arki doontaa videogan hadda soo socdo ee ka bogo. videogaad ku aragteen warqadii waa la qaloociyay. markii la qaloociyay kadib inta la gelin karo horta testiga laba way waa loo isticmaalaa, iyadoo la isticmaalayo anesthesia iyo iyadoo la isticmaalayo anesthesia. haddaba resultiga soo bixi doona labada waa idin kala sheegi doonaa qaybtiisa dambe. warqadda markii la soo qaado ee la qaloociyo waxaa la geliyaa mataqaanaa isha qaybteeda hoose sida sawirka ay uga jeeday baarka hoose dhinaciisa jira dhegta ama temporalka ama dhinaca jira ayaa la geliyaa sida sawirka aad uga jeedaan. si taxadar leh ayaa loo geliyaa oo iyadoon la iska ilaalinayo inaad taabsiiso ama corneada ama eyelasheska maadaama ay yihiin sensitive mataqaanaa parts oo isha ka mid ah oo hadhow sababi kara inay ilin badan soo deyso. saas darteed ayaa la diidaa. marka si taxadar leh adoo u gelinayo ayaa la rabaa qaybta hoose ee lower eyelidka qaybta mataqaanaa baarka hoose inaad geliso dhinaciisa dhegta jira. haddaba sida loo geliyo mataqaanaa shimarta oo warqadan filter paper-ka waxaad si fiican uga bogan doon kartaa videoga soo socda. si fiican u fiiri sida loo qaloociyo kadibna loo geliyo baarka hoostiisa. kadib videoga saad ku aragteen markii la geliyay kadib waxaa mataqaanaa bukaanka la weydiiyaa inuu isha si taxadar leh u xiro ama uu eye blinking u suubiyo ayaa la weydiiyaa markii la geliyo lower eyelidka. kadib markaad geliso meeshaas waxaa marka la miyar gareeyaa inta millimeter ee warqadda qoyde. saad hadday video ku arkayseenba warqadda markii la geliyay meesha hoose waxay bilaabaysaa inay qoyaankeedu soo socdo oo uu soo gaaro mataqaanaa warqadda ilaa iyo intaasoo millimeter. haddaba haddii aad isticmaalaysa anesthesia with anesthesia haddii qoyaanku uu ka yaraado 6 millimeter qofkaas ilintiisu way yartahay ama
waxa uu halis u yahay ama uu qabaaba dry eye ama il qaleel. Haddii aadan isticmaalaynin anesthesia, without anesthesia, haddaad geliso mataqaana filter paperskaas haddii ay less than 10 millimeter uu qoyaanku soo gaaro oo uu 10 millimeter dhaaf waayeen, qofkaas waxa uu qabaa dry eye. Marka muddo 5 daqiiqana waa lagu hayaa oo waa la weydiiyaa bukaanka inuu 5 daqiiqo meesha ku jirto. Marka less than 10 millimeter hadduu 10 millimeter soo dhaaf waayo qoyaanka adigoon isticmaalayn anesthesia, qofkaas waxa uu qabaa mataqaana dry eye. aad baad u mahadsantihiin. waan idinkaga mahadcelinayaa.